cashirkan waxaan ku baranaynaa isku dhufashada polynomialska. isku dhufashada polynomialska ayaan ku baranaynaa. cashirkanna waa qaybtii koowaad ee isku dhufashada polynomialska. hadda waxaan isku dhufanaynaa tusaalahan 5x baan waxaan ku dhufanaynaa 2x. marka ugu horeysa intaadan waxba isku dhufanin polynomials intaan isku dhufan waxaa laga doonayaa inaad ogaatid haddii aad aragtid lambar iyo oo ka horeysa parenthesis sida 3 parenthesis 5 parenthesis haddii aad aragtid taa waxaa laga wadaa waa isku dhufasho. lambarka balaanka jooga parenthesiska ayaa lagu dhufanayaa lambarka ku dhex jira parenthesiska, ama labada lambar ayaa la isku dhufanayaa sida 3 haddana 5. taa micnaheedu waxaa weeye waa isku dhufasho ayadana. marka 3 lagu dhuftay 5 tanna waa 3 lagu dhuftay 5 waa isku midkii. 3 ku dhufa 5 waa 15, 3 ku dhufa 5 waa 15. marka tan waa inaad ogaatid inay tahay isku dhufasho, tanna waa isku dhufasho. laba lambar hadday u dhexayso parenthesis labadaas lambar waa la isku dhufanayaa, waa isku dhufasho. waa calaamadii isku dhufashada noocaas oo kale ahayd. taa waa inaad la socotid. marka hadda waxaan isku dhufanaynaa 5x ayaan ku dhufanaynaa 2x. 5x ku dhufa 2x, 5x lagu dhuftay 2x. marka waxaa la suubiyaa lambarada la isku dhuftaa, xarfahana waa la isku dhuftaa. hadda 5 waxaad ku dhufataa 2, 5 lagu dhuftay 2 waa 10. x waxaad ku dhufataa x lagu dhuftay x waa x square way, ama x oo la exponent 2. marka saas baa la iskugu dhuftaa. hadda halkan waxaan subinay waxa weeye waxaan subinay 5 baan waxaan ku dhufanay 2 waxaan helnay 10. x baan waxaan ku dhufanay x waxaan helnay x oo la exponent 2. tusaale kalaan subinaynaa. jawaabtan waa 10x square way. waxaan subinaynaa tusaale kale -8x oo leh exponent 4 baan waxaan ku dhufanaynaa 3x oo leh exponent 5 isku dhufanaynaa. marka hadda waxaa la subinaya marka isku dhufanaysid polynomialka noocan oo kale waxaa la subiyaa lambarada la isku dhuftaa, xarfahana waa la isku dhuftaa. hadda sida -8 baan waxaan ku dhufanaynaa 3. -8 ku dhufa 3, -8 lagu dhuftay 3 waa -24. hadda waxaan isku dhufanaynaa xarfaha. x oo leh exponent 4 waxaad ku dhufataa x oo leh exponent 5. wuxuu noqonayaa x oo leh exponent 9. haddii aadan aqoon sida exponentyaasha la iskugu dhufto waxaad daawataa videoga kale oo ku saabsan multiplication of exponents, isku dhufashada exponentska daawo. markaad exponentiga isku dhufanaysid waxaa la subiyaa exponentiga ayaa la isku daraa. hadda 4 waxaa ku dartaa 5 waa 9. exponentigana kanna wuxuu lahaa 1 buu lahaa, kanna 1 buu lahaa. marka hal ku dar waa 2. exponentiga 2 noqonaya. tusaalahan hadda marka jawaabteen wuxuu noqday -24 oo x oo leh exponent 9. tusaalahan waan tirtiraynaa, mid kalaan subinaynaa. hadda waxaan isku dhufanaynaa polynomialkan. wuxuu leeyahay x lagu daray 4 parenthesis x lagu daray 3 parenthesis. marka waxaa la subiyaa waa isku dhufasho. marka waxaa la subiyaa x baan waxaan ku dhufanaynaa x, haddana x baan waxaan ku dhufanaynaa 3 baan ku dhufanaynaa. haddana markaa saas ugu dhufano baan waxaan subinaynaa x lambar 4 baan waxaan ku dhufanaynaa x baan ku dhufanaynaa. haddana waxaan ku dhufanaynaa x baan ku dhufanaynaa, haddana 3 baan ku dhufanaynaa. marka hadda x waxaad ku dhufataa x waxaad ku dhufataa x waa x square. x waxaad ku dhufataa 3. x lagu dhuftay 3 waa 3x. hadda waan ku dhufanay x, haddana 4 baan hadda x waan ku dhufanay labada lambar oo dhankan xiga. marka hadda waxaan subinaynaa x baan waxaan ku dhufanaynaa lambarada dhankan xiga, dhanka midig. marka hadda 4 waxaad ku dhufataa x, 4 lagu dhuftay x
waa 4x oo 4x 4 haddana waxaad ku dhufataa 3 4 lagu dhuftay 3 waa 12 marka saas 12 ay tahay waxa la subiyaa like termska ayaa la collect gareeyaa like termska ama kuwa isku xarfaha wata lambarada isku xarfa isku mid ah wata iyo exponent isku mid ah marka halkan x square malahan like terms 3x iyo 4x waa laba like terms sababtoo ah waa laba lambar oo leh xarfa isku mid ah iyo exponent isku mid ah marka waan isku dhufanaynaa waan isku daraynaa ka wada sababtoo ah calaamada isku darida ayaa dhexdooda u dhaxaysa marka 3x waxaad ku tartaa 4x 3x lagu daray 4x waa 7x sababtoo ah 3 marka ku tartid 4 waa 7 3 lagu daray 4 waa 7 x tan waa soo qaataa waa lagu agdhigtaa haddana 12 ma haysato like term marka 12 waa dhiganaynaa marka jawaabteenu wuxuu noqday x square lagu daray 7x lagu daray 12 ayuu noqday tusaalahan tirtiraynaa mid kale aan subinaynaa hadda waxaan isku dhufanaynaa tusaalahan baan subinaynaa tusaalahan 3x parenthesis 5x lagu daray 2 parenthesis marka waxaan subinaynaa waxaan isticmaalaynaa distributive law ayaan isticmaalaynaa si aan parenthesiska meesha aga baabi'ino distributive law ayaan isticmaalaynaa haddii aadan aqoon sida loo isticmaalo distributive law waxaad daawataa videoga kale ku saabsan distributive law marka hadda waxaan subinaynaa lambarka ballaanka ka jooga parenthesiska ayaan ku dhufanaynaa lambarada ku dhex jira parenthesiska sida 3x baan waxaan ku dhufanaynaa 5x iyo 2 ku dhufanaynaa marka hadda 3x waxaad ku dhufataa 5x 3x lagu dhuftay 5x waa 15x square sababtoo ah 3 marka ku dhufatid 5 waa 15 x markaad ku dhufatid x-na waa x square hadda 3x waxaad ku dhufataa 2 3x lagu dhuftay 2 waa 6x sababtoo ah 3 markaad ku dhufatid 2 waa 6 x tana waa la soo qaataa halkaas baa lagu qortaa marka hadda jawaabteenu wuxuu noqday 15x square lagu daray 6x ayuu noqday hadda halkan waxa subiya waxa weeye lambarka ballaanka ka jooga parenthesiska oo ah 3x ayaan waxaan ku dhuftay 5x waxaan helay 15x square haddana lambarka ballaanka ka jooga parenthesiska oo ah 3x ayaan waxaan ku dhuftay 2 waxaan helay 6x ayaan helay marka saas ayaa la iskugu dhuftaa tusaalaha waa tirtiraynaa mid kalean subinaynaa hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 2x square lagu daray 3x laga jaray 4 parenthesis haddana 3 waxaan ka wadaa xxx lagu daray 5 parenthesis haddana marka waan isku dhufanaynaa waxaan subinaynaa 2x square baa waxaan ku dhufanaynaa lambarada dhanka midig xiga oo parenthesiska sida x iyo 5 haddana 3x baan waxaan ku dhufanaynaa lambaradan dhankan midig xiga sida x iyo 5 haddana negative 4 baan waxaan ku dhufanaynaa lambarada xiga dhanka midig ee parenthesiska sida x iyo 5 marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa 2x square aan ku bilaabaynaa 2x square waxaad ku dhufataa x 2x square lagu dhuftay x waa 2x oo leh exponent 3 haddana 2x square waxaad ku dhufataa 5 2x square lagu dhuftay 5 waa 10x square way 10x square hadda 2x square waan ku dhufanay lambarada xiga dhanka midig oo dhan waan ku dhufanay sida x iyo 5 waan ku dhufanay marka hadda waxaan u gudbaynaa lambar 3x ayaan u gudbaynaa 3x waxaad ku dhufataa x 3x lagu dhuftay x waa 3x square way 3x square hadda 3x waxaad ku dhufataa 5 3x lagu dhuftay 5 waa
15x waa 15x sababtoo ah 3 marka ku dhuftid 5 waa 15x kan waa soo qaadanaysaa oo ku ag dhiganaysaa hadda 3x waan ku dhufanay lambarada xiga dhankan midig parenthesiska sida x iyo 5 marka hadda waxaan u gudbaynaa -4 ayaan u gudbaynaa -4 baa waxaan ku dhufanaynaa labadan lambar oo kala ah x iyo 5 marka -4 waxaad ku dhufataa x -4 lagu dhuftay x waa -4 lagu dhuftay x waa -4x weeye -4 waxaad ku dhufataa 20 -4 lagu dhuftay 20 waa -20 marka saas iskugu dhufatid baad waxaad suubinaysaa like termska ama kuwa like termska ayaa collect garaynaysaa like termska marka kuwa ah like terms kuwa like termska ah waa lambarada leh xarfaha isku midka ah iyo exponentiga isku midka ah marka hata 2x oo leh exponent 3 ma haysato like terms marka ma haysato like terms 10x square iyo 3x square waa like terms sababtoo ah waa laba lambar oo leh xarfo isku mid ah xarafkaasna waa x waxay kaloo leeyihiin exponent isku mid ah exponentigoodana waa 2 marka waan isku daraynaa maadaama ay u dhaxayso calaamadii isku darista ahayd marka 10x square waxaad ku dartaa 3x square wuxuu noqonayaa 13x square ayuu noqonayaa sababtoo ah 10 marka ku dartid 3 waa 13 x squared kana waa soo qaataa halkaas baa la keensadaa lagu dhigtaa hadda 5x iyo -4x waa laba like terms sababtoo ah waa laba lambar oo leh xarfo isku mid ah xarafkooduna waa x waxay kaloo leeyihiin exponent isku mid ah exponentigoodana waa hal laakiin halka uu qarsoon yahay marka waan kala jaraynaa sababtoo ah calaamadii kala jarta ahayd ayaa dhexdooda joogta marka 15x waxaad ka jartaa 4x 15x laga jaray 4x wuxuu noqonayaa 11x ayuu noqonayaa 20 like terms ma haysato marka waan dhiganaynaa maadaamaysan haysanin marka hata jawaabtaynu wuxuu noqday waa collect garaynay like termska final answerka wuxuu noqday 2x oo leh exponent 3 lagu daray 13x square lagu daray 11x -20 ama laga jaray 20 saas ayuu noqday tusaalahan waan tirtiraynaa mid kale aan suubinaynaa hadda waxaan suubinaynaa tusaalahan a plus b lagu dhuftay a minus b marka waxaan suubinaynaa a baan waxaan ku dhufanaynaa a haddana a baan waxaan ku dhufanaynaa -b haddana b baan waxaan ku dhufanaynaa a haddana b baan waxaan ku dhufanaynaa -b marka saas ayaan iskugu dhufanaynaa waxaan suubinaynaa a baan ku dhufanaynaa a haddana a baan waxaan ku dhufanaynaa b haddana b baan waxaan ku dhufanaynaa a haddana b baan waxaan ku dhufanaynaa -b saas ayaa la iskugu dhuftaa markaan suubinno a ku dhufo a lagu dhuftay a waa a square a haddana waxaad ku dhufataa -b wuxuu noqonayaa a lagu dhuftay -b waa -ab ayuu noqonayaa -ab haddana b a waan ku dhufanay labadan dhanka midka xiga oo dhan waan ku dhufanay a iyo b waan ku dhufanay marka hadda b baan waxaan ku dhufanaynaa a iyo -b b had ku dhufa a b lagu dhuftay a waa ab weeye ab b haddana waxaad ku dhufataa -b b lagu dhuftay -b waa -b square weeye markuu saas yahay waxaan collect garaynaynaa like termska kuwa ah like terms kuwa like termska ah waa kuwa isku xarfaha leh exponentigoodana isku mid yahay marka a square like terms ma haysato -ab iyo ab waa laba like terms sababtoo ah waa laba lambar waa kuwa leh xarfo isku mid ah waxay kaloo leeyihiin exponent isku mid ah exponentigoodana waa hal marka -ab waxaad ku dartaa ab -ab lagu daray ab waa eber marka halkan waxaa noo soo haraya -b square ayaa soo qaadanaynaa halkan ku dhiganaynaa jawaabtan wuxuu noqday wuxuu noqday a
square minus b square ayuu noqday cashirkaana oo ah qaybtii koowaad ee isku dhufashada polynomialska hal waxaan gelaynaa hadda qaybta labaad marka waxaad daawataa videoga kale ku saabsan qaybta labaad ee cashirka isku dhufashada polynomialska